taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolada galbeedka ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xeebaha Somaliland ay si buuxda u sugeen amniga iyo sugidda xuduudaha dalka ee dhinaca badda. taliyaha telefishinka qaranku ay kula kulmeen gasiiradda Sacaadadiin ee waqooyiga kaga beegan magaalada Saylac ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ciidanku ay markasta heeganka buuxa ugu jiraan. nabadgelyadeedu waxa weeye waa taam runtii dalkan Djibouti ee xuduudda wada leenahayna waxa weeye si fiican baan wada shaqaynaa runtii Yaman oo kale waynu ognahay way burburtay Yamani waan iska katroolaa waxa ka soo gelaya geesta kalena taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolada galbeedka ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay in ay todobaadadii laga soo gudbay fashiliyeen isku day lagu doonayay in dad lagaga tahriibiyo meelo kamid ah xeebaha badda ee gobolada galbeedka. amadu tahriibtu way jiraan tii ugu dambeysay waanu qabanay haddana hadiya habeen istaanbay baan u nahay ciidamadu meelaha badda dhinaceeda ay ku teedan yihiin insha Allah waqti dhowna waxaan ku rajaynahay inaan soo afjiro ilaa hadda waxa baxay ma jiraan tii ugu dambeysay waanu qabanay iminka waxaan ugu qabanay meel yar oo lugaya xagga bariga ka xigta maxay markaa dad basaarnaa ma waxa weeyaan dadkii baanu qabanay laakiin gaadiidkii maanan helin oo way gaadiidkii waxa la ogaaday in dadkii laga qabtay marka ayaban kama soo bixin marka dadka soo tireen teleg bay ahaayeen meel sidaay mise wal xulay 16 qof bay ahaayeen marka waxaan u gudbinay poliiska laanta amnigan u gudbinay poliiska qaaday marka muwaadiniin reer Soomaaliya ahaayeen mise dad ajnabi oo Ethiopian iyo xasan reer Somaliland bay ahaayeen. Axmed Xuseen Warsame telefishinka qaranka Somaliland gasiiradda Sacaadadiin.